Salaamullaahi calaykum asxaabteyda qaaliga ah, kusoo dhawaada YouTube channelkeena Raxmad Diamond. Waxaan mar walba idinkaga mahadcelinaa sida quruxda badan ee aad iila socotaan oo aad ii daawataan. Waxaan kaa codsanayaa haddii aad ku cusub tahay channelka oo ay tahay markii kuugu horeysay inaad subscribe ii saarto oo aad ka mid noqoto asxaabteyda. Waxaan idinla wadaagi doonaa mar walbo mowduucyo ku saabsan hooyada iyo dhallaanka. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. Waxaan kaa codsanayaa inaad channelka ii share gareyso oo aad asxaabtaada kale aad la sii wadaagto. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa 3 waqti oo ay tahay hooyada inay badiso nasiinada. 3 waqti waxaa lagula talinayaa hooyada inay hesho nasiino ku filan. Waqtiga ugu horeeya ee aan soo qaadan doono waxaa wanaagsan hooyada inay maskax ahaan ay u nasato. Waqtiga ku xigana waxaa la daneynayaa oo la doonayaa uurjiifka caafimaadkiisa. Halka waqtiga 3aad ee aan soo qaadan doonan ay tahay mid u wanaagsan uurjiifka iyo hooyada labadaba. Hadduu Allah yiraahdo. Waxaan ku horeynayaa markii ay tahay hooyada inay maskax ahaan u nasato oo midda koowaad ah waa hooyada markii ay soo dhasho. Hooyada markii ay dhasho waa xilliga loo baahan yahay in maskax ahaan ay u nasato oo ay hesho hurdo ku filan. Nasiinada maaha inay hooyada howsha ka nasato inay socsoconin maaha. Waa nasiino ah hooyada maskax ahaan inay u nasato. Xilligan waxaa la doonayaa hooyada inay hesho hurdo ku filan. Hurdo ay maskaxdeeda ku degto oo ku filan inay hesho. Nasiinadan hooyada markay dhashay ee maskax ahaan u nasanayso ay qaadanayso hurdo ku filan waxay ka caawineysaa in dhallaankeeda yarka ay siiso daryeel ku filan. Sidoo kale waxay ka hortagaysaa in hooyada ku imaado postnatal depression oo ah depressionka ku imaada hooyooyinka markii ay dhalaan kadib. Waxay noqonaysaa qof maskax ahaan u nasatay oo u degtay. Nasiinada iyo hurdada ku filan ay helayso oo ay qaadanayso dhalmada kadib ama xilliga umusha waxay ka caawineysaa inuu ka yaraado walwalka iyo stresska oo ay noqoto hooyo maskax ahaan u degan. Mar walba hooyadu tahay hooyo degan oo xasiloon waxaa imaan doona in dhallaankeedana uu helo barbaarin iyo daryeel fiican oo ku filan. Hooyada haddii ay weyso hurdada iyo nasiinada maskax ahaaneed waxaa qalqal gali doona ama yaraan doona soo saarista caanaha. Waayo markastoo moodka hooyada uu isbedelo oo ay maskax ahaan noqoto qof yara kacsan waxa ay saameyneysaa soo saaristii caanihii dhallaanka uu nuugi lahaa. Taasna saameyn ayay ku yeelanaysaa dhallaanka yar. Dhaqaatiirtu waxay ku talinayaan xilliga umusha hooyada in ay hesho hurdo ku filan. Xitaa haddaysan haysanin qof caawiya waxay hurdi kartaa oo ay seexan kartaa xilliga uu jiifo dhallaankeeda yarka ah inay ka faa'iideysato oo ay seexato si maskaxdeeda ay u degto caafimaad taamahna ay u hesho. Xilliga labaad oo hooyada ay u baahan tahay nasiinada waxay tahay xilliyada dambe ee uurka. Bilaha dambe ee uurka haddii ay isku aragto dhabar xanuun ayadoo la gaarin waqtigii foosha iyadana nasiino ayay u baahan tahay. Hooyadu waa inay iska ilaalisaa qaadista waxyaabaha culus. Sidoo kale inta badan ay u seexato dhinaca midig oo ay u seexato ayaa caawinaya hooyada. Siinada bilaha dambe ee uurka hooyadu waxay ka caawineysaa inuu ka yaraado dhabar xanuunka oo ay hesho oo ay qaadato nasiino ku filan. Taas micnaheeda maaha hooyada inaysan soconin maalintii oo idil. Socodku waa muhiim laakiin waxaa la diidayaa hooyada inay inta badan ay badsato taagnaanshaha ama ay badsato fadhiga. Waayo waxay ka khafiifineysaa dhabar xanuunka zaa'idka ah. Bilahan dambe hooyadu waa inay iska ilaaliso inay u seexato gadi cad ama dhabar
waayo waxay saameyneysaa caafimaadkeeda iyo midda uurjiifkaba. Dhabar xanuunka bilaha dambe ee uurka wuxuu marmarka qaar noqon karaa wax loo yaqaano false labor oo ay Soomaalidan dhahdo fooldiin. Hooyada haddii ay dhabar xanuun zaaid ay dareemeyso waa inay la xiriirto dhakhtar oo ay baaritaan isku sameyso si caafimaadkeeda loo ogaado. Haddii caafimaadkeeda uu normal yahay oo wax dhiba uusan jirin, xilligaa waxay u baahan tahay nasiino zaaid ah. Waxay kaloo u baahan tahay cunto xawli ah oo badan inaysan qaadanin oo ay cuntada iska yareyso. Taas micnaheedu waxay tahay meesha hal waqti ee wax badan ay ka cuni lahayd in ay kala qeybiso oo waqti walba wax yar ee cunto, ugu yaraan maalintii 5 mar inay wax cunto, halkii marna ay qaadato cunto yar oo aan badnayn. Nasiinada bilaha dambe ee uurka dhakhaatiirtu way kula taliyaan hooyooyinka uurka leh. Xilliga saddexaad oo ay hooyadu u baahan tahay nasiinada waxay tahay bilaha ugu horeeya ee uurka. Hooyada haddii ay dareento xanuun dhanka mindhiciraha ah ama ay isku aragto bleeding ama dhiig, xilligaas ayadana waxay u baahan tahay nasiino. Calaamadahan hore usoo sheegay mid ka mid ah haddaad isku aragto, marka ugu horeysa la xiriir dhakhtarkaaga si kombiyuutar loogu saaro oo loo ogaado xaaladda uurjiifkaaga cusub. Haddii wax walba ay okay yihiin oo minkaaga uu xiran yahay, waxa ay dhakhaatiirtu kugula talin doonaan in aad qaadato ama aad sameyso nasiino. Marmarka qaar hooyooyinka nasiino oo dhanka isbitaalka ayaa lagula taliyaa. Balse haddii uu dhakhtarka ku yiraahdo xaafadaada iska aad, waa in aad badiso nasiinada. Haddii aad ahayd hooyo shaqo culus qabato ama howsha guriga zaaid u qabato, iska yaree bilahaas hore. Waayo haddii aadan qaadanin nasiino oo aadan sameynin in aad nasatid, waxa ay saameyn doontaa caafimaadka uurjiifkaaga, waxaana imaan karta inuu minka isfuro oo banaanka uu soo baxo uurjiifkaaga yar. Waayo markasta uu xanuunka mindhiciraha zaaid noqdo, waxay saameyneysaa uurjiifka. Sidaa awgeed, bilahaas hore haddii aad dareento calaamadihii aan soo sheegay, waxaad ku dadaashaa in aad nasato. Nasiino weliba ah in aadan howl badan aadan qabanin, wax culus aadan qaadan, xitaa socodka zaaidka ah bilaha hore inaad iska yareyso. Waa haddii calaamadahaas halista ah aad isku aragto. Waxaan Allah ka baryayaa hooyooyinka xaamilada inuu Ilaahay u fududeeyo, kuwa dhalay ee awlaad haystana uu Allah baari uga dhigo uuna la koriyo. Inta aan awlaad haysanina awlaad xalaal ah oo wanaagsan oo baari ah inuu Allah ku irsaaqo. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii fiidiyowga aad ka heshay like inoo saar.